بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ehelada iyo qaraabada hoose iyo dowladda iyo shacabka Hirshabeelle iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida isdaba jooga ee shalay iyo maanta isaga keena daba timid oo shalayna uu ku baxay walaalkeen Ali Beesh gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe maantana uu ku baxay walaalkeen Sheekh Xuseen Cusmaan gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee ka xildhibaan hore. waxaan leenahay ehelka iyo qaraabada dhammaantoodba Ilaahay sabar ha ka siiyo. dhammaan ummadda Hirshabeelle madaxdeeda iyo shacabkeedaba dhammaan waxaan leeyahay sabar Allah naga wada siiyo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana sabar Allah ka siiyo. waa geeri xanuun badan xaqiiqatan qof kastaba ajal uu leeyahay oo una dhaafeen oo waqtigeedu uu go'an yahay. Ilaahay wuxuu leeyahay la yastaakhiruuna saacatan wala yastaqdimuuna. qofka marka waqtigiisa uu yimaado hal saacadna loogu dari maayo, saacadna dib loo dhigi maayo, waqtigiisa uu ku baxaa. laakiin waxaad moodaa geerida isaga keena daba timid shalay iyo daraad inay tahay mid xanuun badan, laana qofka haddii uu xanuunsado oo uu jirrado oo la yiraahdo maaragtay la maqlo waxaad is leedahay dad xoogoo niyaddu way sabri kartaa. laakiin haddii qof caafimaad adiga aad ku ogeed oo hadda sii socday oo waxbaa ku dhaca aan lagu lahayn waa dhintay haddii lagu yiraahdo aad bay u naxdin badan tahay. marka hadda waxaan leeyahay ayagana kitaabkooda Ilaahay midka ka siiyo, qabrigooda Allah u waasiciyo, jannatul firdaws Allah ugu bishaareeyo, annagana gadaashooda Ilaahay nama fidneeyo. sabr iyo iimaan guud ahaan Allah naga siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.